soo tuntay see follow bay iga noqotay qoodhay iyo xeraday iyo xiniintay haddana orod ban istaabtayoo nin mawlid curjin la yidhahdaa isoo wacay oryaaniyow comedian baad ahayd comedy baan kugu ogaa fankii baad gashay innaba caadi ma tihid heestaydii markaa waxay kusii dhowdahay milyan ugu horreysay wuxuu igu yidhi hees waxaan kuu hayaa buu yidhi comedy ah oo hawlahaaga iyo markaasaan ku yidhi soo dir 9 fanaan baa diiday heesta barbar nin baan ula tegay cabdullaahi boqol la yidhaahdo oo fanaana oo saaxiibkee markaasaan ku yidhi heestan in la xamaysiyo war waxaan waa hayaa hees maahan ma iska daysi war noo la xamee annaga rabnee wuu ii la xameeyey ariidaan u tagnay meeqaa ku tuntaa heesta 200 shan baan siiyey suuxuu tumay biidka aragteenoo balaayada waa soo tegey liibaan jaamic baan kusoo laabtoo markaa saaxiib nahay dee isku fiicantihiin lagu ninkii guriga iska gargaraacay ninkii ciyaalka iska qaaday habka siiyey adeer markaasaan heestii inta idhid garaynay laba xiniyood buu kasoo baxay waxaan leeyahay heestii baa inta idhid garaynay oo la habeeyey baa waxaa la garan waayay magac loo bixiyey gabar korkayga taagan baa waxay tiri dee barbar u bixiya the guy he's spelling down and the song sounds like good barbar haye say wallahi bay ahayd heestii barbar baa lagu qoray wallahi magaca bixisamiya Omar barbar baa lagu qoray marka barbar heestaas la igu magac daraya Omar barbar bay ku qoreen صح ilaahay baan ku dhaartay inaanan been idii sheegayn habeenkiisaa loo geliyey 7 cisho markay ka tirsan tahay dee 7 days Soomaali Maxamed oo 7 days 1 million ku gaartay ana wada daadanaysa baa aragtay saa wada daadanaysa 1 million views 7 days record wuu xiran yahay wuu qoran yahay Soomaalidii baad daadatay xagga ka bax waa waray show baa la soo dhajiyay aniga nin baa heestada Omarow ina dhextaan aan ku galiyay ninaad garanayso oo la dhaho Cabdiqani Maxamed Jaacdhaar waa garanaysaa saaxiibadii wuxuu iigu faanay wuxuu yidhi ninka saaxiib baan nahay marba waa istuuraa moogtay meeg buu 7 cisho igu haystay bilkin buu la joogaa moogtay hadda Omar waa aqaan ninka barbarka haddaa taqaanana may waa aqaanaa saaxiib baan nahay landheer waa soo wada jabnaa aad iyo aad oday baa meeg igu qaadanayay 7 cisho Omar baanu isnaqaanaa waxaa dhacday Omar iyo tii horta waa salaam ya Axmed Faade waa kaa qaaday qodax baa soo galay landheer dhalay waa ku Omar ku soco عليك السلام qodax oo soo dhawaynaya isoo qabo waa la isoo الله taariikhku nooga sheekay ma qosku laga dhameeyay doonyaale waa ku salaamay isla soo dhawo kumeeyo Omarow kol bay soo galay soo qabo ku yiri codka ku soo laabanaya ana arkin laqama kulkii ku tagay Omar qosku laga dhameeyay maanta laba xiniyood buu ninkaas ku soo baxayo wareede kuwa xun ay soo wacay ma ku maqlan hadir waxaa dhacday salaamaya sultan qodax doonyaale waa kaa qaaday landheer doonyaale soo dhawo waxaa dhacday showgii ugu horreeyey doonyaale saaxiib soo dhawo showgii ugu horreeyey abid baa la igu soo dara haye anu ninkii waan u socdaa ninkii ku yiri fanaaniintii baa shiraysa meesha sugay waa inta weey fanaaniin badan baa timid dalmar baa yimid adigu fanaaniin badan baa Raxmed Roos baa timid ayadoo fanaaniin caana ay shirayso buu soo gala markaas waxaan ku yiri inaad ma naga yar hal ahaatid fanaaniinta caanka baa shiraysay ilaahay baan ku dhaartay saacadda ka bax fanka hadii la idhi lahaa waa ka bixi lahaa kantaal baa ku dhushatay ereygaas bes baan u soo galay fanka ninkii markaan ku yiri inaad iska tag fanaaniinta caanka baa shiraysay oo xanaaqay isbuuc amaliga ku gaadhay macnaha fiyuuska uu dhowr kalar noqday baan
waxaan iri markaa haddii xataa la iga saari lahaa la idhihi lahaa Omar fanka waad ka baxaysaa waa u qabay warshowgii adduunkan dhegsanayo magaaladii adigu gudub bay u kala ordayo muhiimadda marka sheekada intaasan kaaga soo waday weligaa iyo allaha qofka bini aadanka anigu waagaas nagnag laanahaa uu hadalka ay dhahayo nagnaglahaygaasaa iska sii ahaan lahaa hadduusa hadalka ay dheheen doonyaala soo dhawow qodax soo dhawow waa hore isugu kaay dambaysay raggan libaaxyada doonyaala maxay tahay Kim Jong Un baad ku darsatay qodax anu markaan heestaada arkay إسان كازي وقت سلام الدنيا سدوا تسعة qof igu makool baa ku soo galay qodaxo qof qaali igu ah waa islaalaadinaya asoo laabtee qofkaas sharaf niyow habeenkaan arkay heestaada barbar waxa dhacday mataqaana waxa wareede ninkan Cumar ama dhuuntii miyuu qalliin ku sameeyay codka kuma aadan ogeyne meeshaan joognay meel lagu heesi kara miyahay xero qaxooti bay ahayd dadkoo dhan waa wada gaajaysnaaye wallaahi bilaahi taasaan beenahayn keligaaba Omar laakiin keligaaba Omar waxa uu xoogaa lacag qaadanayay kulligan ma lacag baa qaadarin Omar laakiin waxa la yiri mataqaana codka igu soo laabanaya codka aniga igu soo laabanaya aniga ma lay maqlaa ha hadda caadi ah qodax baa hawaan si fiican weyn doon yaale inaad rawa ku salaamo salaamullah isla soo dhaw doon yaale dhawaha sultan waxa weeye Omar Canada ku imaanaa ma garat adigiyo aniga qodaxiyo war waa idin soo dhaweynayaa mideeda kale anigu hadda inaan baxbaxaa ii qorshaysan 10 sano baan ku dhufsaday baasaboorkii ma garat xageeda adduunka sanadba waddan baan degayaa badakada socotaa may sanad waddan baan degayaa 10 sano markay iga soo dhamaato haddana Canada ku soo noqonaya hadii ilaahay idmo inta aanan Yurub ka tagin Yurub aan ku soo dhaweeyay horta Yurub soo horay adiga magaaladaadu waa imaanaya horta Sudan ma weydiisato